bal eeg taswiirta sideedaad. mar waxaa jiray ari jire oo lahaa markaas isaga ah 100 ari. markaa ari jirihii waxaa ka dhumay mid ka mid ah arigii. maxaad u malaynaysaa markaa in uu sameeyey? markaa waxa uu sameeyey waa uu doonay intii uu 99kii ari oo kale uu geeyey meel wanaagsan ayuu doonay midii luntay. markii uu doonayay arigaasi ka mid ah 99kii ayaa arigaasi markaa waxa la oran jiray dhagqanjoor, isagoo ugu wacaya dhagqanjoor ayuu raadiyay. markii dambana waa uu helay. taswiirtan ayada markaa waxaad ku aragtaa isagii oo halkii ariga ahaa soo jiidaya oo doonaya inuu badbaadiyo. waxa aan ku sheegayaa sida runta markii uu helay hashii ariga ee maqnay aad ayuu u farxay oo hatta dusha ayuu saartay garabkiisa oo hatta dariskiisii ayuu u sheegay isaga oo aad u faraxsan. saaxiib, maxaad u malayn kartaa in aanu ka baran karno misaalkan isaga ah? miyaad garanaysaa waxa uu yahay ari jiruhu? haa, ari jiruhu waa Ciise. oo miyaad garanaysaa waxa uu ahaa arigaasi kaliya ee dhumay? arigaasi dhumay waxa uu matelayay kuwa naga mid ah ee ka leexday jidka Ciise ee dhumay ee markaas raacay jidadka shaydaanka. kitaabka quduuska ah buugga Luukos cutubka 15 aayada 7 waxa ay leedahay sida tan: waxaan idinku leeyahay sidaas oo kale farxad ayaad jannada kaga jiri doonta dambiile toobadkeena in ka badan 99 xaq ah oo aan toobadkeen u baahnayn.